This DC power supply ama build DC power supply waxaa idin soo diyaariyay anigoo ah Engineer Cabdiwahaab Somtronics. Qaybtan waa qaybtii labaad. Wuxuu la socdaa casharkii koowaad oo aan ku magacaabay Baro DC power supply. Marka fadlan fiirso casharkaas. Insha Allah waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidaysataan. Maadaama aan ka shaqaynayno koronto khatar ah, waxaan rabaa inaan idin siiyo digniin. Markaad dhisayso power supply-gan waa inaad taxadar aad samaysaa. Marka la soco meeshaas koronto khatar ah ayaad ka shaqaynaysaa oo AC ah. Korontada America aan ka shaqaynayo waa 120 AC. Wadamada Carabta ama Soomaaliya iyo Yurub waa 220 volts waay. Marka wax yar way ka khatarsan tahay. Marka is ilaali markaad dhisayso power supply-ga. Power supply-ga aan dhisi doono wuxuu leeyahay box and plastic ah oo aan ku xiray connector-ka uu ka qaadanayo AC-ga uu ka qaadanayo. Marka halkaas ayay ka galaysaa AC-ga. Connector-ka labadiisa fiilo oo dabka neutralka iyo hot-ka waxaa midood aan ku xiray switchkaas oo aan ka damin doono ka daari doono dabka soo galayo power supply-ga. Connector-ka wuxuu leeyahay fuse-kaas oo ah 15 amperes oo haddii korontadu ay ka badato transformer-ka si uusan transformer-ka ama circuit-ka noogu guban fuse-kaas uu guban doono. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaysan taas nagu dhicin maadaama waxayna aysan power badan aysan qaadanaynin. Tan kale transformer-kaan isticmaali doono waa step down transformer sidii casharka koowaad aan kusoo sharxay. Labadiisa fiilo oo primary-ga waxay ku xirmayaan waxay ku xirmaysaa AC adapterka ka imaanayo dabka ka imaanayo connector-ka. Midda kalena waxay ku xirmaysaa switch-ka oo aan ka daarayo ka daminayo. Saddexda fiilo oo secondary-ga ah, laba waa signal kala duwan oo sida casharkii hore aan kusoo sharxay oo kala duwan iyo waxay leeyahay fiilo kale oo la yiraahdo center tap oo ah midda ground-ka ah. Marka signalka waxaan ka qaadan doonaa ground-ka oo ah center tap-ka iyo midda signalka plus-ka ah iyo signalka minus-ka ah. Waxaan kaloo haystaa circuit board oo aan ku dhisi doono alaabta aan haysto ay ka mid yihiin capacitor-ka, labada diode, laba capacitor oo 0.1 microfarad ah iyo regulator-ka oo ah 7805. Waxaan kaloo haystaa connector kaas oo aan ku xiri doono power-ka ka soo baxo power supply-ga oo DC-ga 5 volts-ka meesha aan ka qaadan doono. Step down transformer-kaan isticmaali doono quwadiisa waxay tahay 100 ilaa 120 frequency-giisana waa 60 hertz. Output-kiisa wuxuu na siinayaa 6 volts ayuu na siinayaa. Korontada aan ka helaynina waa 500 milliamps ama 0.5 amps. Waxaana lagu soo sameeyey China. Waana center tap oo fiilada cagaarka waxayna tusaysaa center sida casharkii hore aan kaga hadalnay. Waxaan isticmaali doonaa linear regulator ama fixed voltage regulator wax la yiraahdo oo noociisa uu yahay 7805. 05-ka waxay ka taagan tahay 5 volts. Qaarkood waxaa ku yaalo 2 alif micnaheedu waxay tahay 2 alif volts. Marka la soco saas. 3 lug ayuu leeyahay. Midda koowaad waa input waa meesha uu ka qaadanayo dabka. Midda labaad waxaan ku xiraynaa ground-ka. Midda saddexaadna waa meesha annaga aan ka qaadanayno DC-ga aan ka qaadanayno ama 5 volts-ka uu naga siinayo. Block diagram-kiisa haddaa fiiriso input-kiisa pin 1, pin 2 iyo pin 3 ayay kala yihiin. Voltage-ka uu xamili karo waa 7.5 ilaa 35 volt oo DC ah. Sida aan casharkii hore kusoo sharaxnay, halkaas annaga waxaan helaynaa ilaa 10 volt ayaan helaynaa. Marka waan la kulmaynaa wixii loo baahnaa. 2-gana waxaan ku xiraynaa ground, 3-gana waa output-keena. Output-keena wuxuu na siinayaa voltage regulated ah oo aan isbedeli doonin oo 5 volt ah. Marka waxaan u isticmaali karnaa waxyaalo badan. Waxaan ku charge garaysan karnaa telefonka. Waxaan u isticmaali karnaa waxyaalo kale oo ama radio waxyaalo saas oo kale oo wax kas ku shaqaynayo 5 volts. Circuit-ka sidii qaybtii hore aan kaga soo hadlay sidaas ayay u eg tahay. Waxaan isticmaali doonaa connector-kii, fuse-kii, transformer-kii, labadii diode, center-ka ground ayaan ka dhigayaa, labadii capacitor C1 iyo C2 iyo regulator-kii 7805 iyo capacitor-kii output-ka ahaa. Marka sidaas ayaan
isugu rakibayaa circuitkaas. Halkan waxaan ku haystaa sanduuqa aan u isticmaali doono inaan power supply-ga gelino. Waxa uu leeyahay AC adapter meeshii aan ka gelin lahayn. Waxaan kaloo haystaa switch aan ka damin doono. Halkaa waxaan ku duleeliyey maadaama uu sanduuqa ka samaysan yahay plastic. Halkaa waxaan ku duleeliyey alxanka aan isticmaalay. Marka god ayaan u jaray waana geliyey. AC adapterkan ama connectorkan wuxuu leeyahay fuse meel uu ka gelayo. Fusekaas oo ah 15 amps ah. Korontada aan isticmaali doono waa korontada America oo ah 110, laakiin waa isticmaali kartaa, wuxuu qaadi karaa ilaa 250 oo AC ayuu qaadi karaa. 15 ampere-na waa ku filan tahay. Waxaan samayn doonaa, waxaan ku xiri doonaa fuseka meesha oo hal lug oo fuseka ah sidaan idinku tusaa schematic-ga. Waxaan ku xiri doonaa switchka midka ka tagayna wuxuu ku xirmi doonaa transformerka. Transformerkiina waa kana. Labada fiilo sida idin soo sheegay waxay tahay labada fiilo oo ka soo galaya AC-ga. Saddexda fiilo transformerka noocan waxaa la yiraahdaa center tap. Inputkiisa waa 100 ilaa 120 oo AC ah, wuxuuna qaadayaa frequency-ga 60 Hz. Soomaaliya haddaa aad joogto kan wuxuu noqonayaa 200 ilaa 220 ilaa 240 oo kale ayuu noqonayaa inputkiisa. AC-giisa halkan frequency-gan wuxuu noqonayaa 50 Hz. Sidoo kale Europe iyo Carabta haddaa joogto. Midkan wuxuu soo saarayaa 12 volt AC ayuu soo saarayaa. Wuxuu ka soo saarayaa labada fiilo. Center tap-kana waa meesha dhexda ah. Insha Allah waxaan ku xiri doonaa ground. Korontada uu xamili karo oo banaankii uu soo saari karana waxay noqonaysaa 500 oo milliamp ama 0.5 amps, half ama nus amp ayuu soo saari karaa, ama 500 milliamp. Marka haddaan ku rakibaynaa, waa alxami doonaa haddeertaan. Waxaan ku alxami doonaa power supply-ga. Fiilada midood waxay ku xirmaysaa halkaas, tan kalena waxay ku xirmaysaa switchka sidaan idinka tusay schematic-ga. Tan kalena waxaan ku xirayaa switchka. Marka transformerkii waan ku xirnay. Wuxuu leeyahay fusekaas haddii qalad dhaco waa uu damayaa, waa uu gubanayaa. Marka insha Allah fuse kale u baahnaan doona, laakiin hadda waa uu shaqaynaya. Marka sidaas ayaan ugu xiray sidaan idinka tuso schematic-ga. Haddana qaybta dambe ayaan ku xiri doonaa. Haddana waxaan fiirin doonaa signalka ka imaanayo transformerka. Transformerka labadiisa fiilo oo signalka redka ah waxayna tusayaan sine wave oo kala duwan oo mid walba oo midka kale opposite u yahay
ayuuna tusayaa. greenkana waa center tabka, waxaanu isticmaalaynaa ground. iska ilaali korontada inaad khatar isgeliso. haddana waxaan daarayaa powerka. marka waxaa fiirisaa channel 1 iyo channel 2 waxa uu noo sheegi doonaa voltageka, AC voltageka uu yahay, waxa la yidhahdo RMS oo root mean square ah, iyo frequency-ga. markaan daaro channel 2 waa kan, channel 1na waa midka. markaa fiiri, waxaana ku kala xiray fiilooyinka sidaan hore idin tusay. labada channel ayaan ku kala xiray signalkii. sidaa ujeedaan markaan daaray channel 1 iyo channel 2, labada signal haddaa isku fiiriso waxaa arkaysaa inay isu yihiin opposite. marka uu channel 1 high yahay, channel 2 waa opposite, waa minus. sidoo kale markuu channel 1 uu yahay minus v voltageka uu yahay, channel 2 waa positive. marka taa waa important concept aad u baahan tahay inaad fahamto. haddii aan fiirino signalka, haddaan rabno inaan cabirno, waxa uu noo sheegayaa frequency-ga, wuxuu noo sheegayaa 59 hertz. periodka aan cabirayno waxa uu noo sheegayaa 16 milliseconds, waa periodka oo kaas ah. meanka waa 400 millivolts. peak to peak oo ah signalka inta uu jiro, oo markii laga bilaabo minuska ilaa pluska laga tago voltageka, waxuu noo sheegayaa 21 volts peak to peak ah. minimumkiisa waa -10, maximumkiisana waa +10. marka markii labadaa la isku daro wuxuuna siinayaa 21 volts AC oo peak to peak ah. marka taana waa important in aan fahamno. inta aadan shaqada alxanka aadan bilaabin, hubso inuusan koronto aysan ku jirin si aysan noloshaada khatar u gelin. waxaan u baahannahay 3 fiilo, labana ay signal yihiin kala duwan oo sinusoideka sidaa intusa ah, iyo midda greenka oo ah center tabka ama ground. marka hadda waxaan bilaabayaa alxankii ayaan bilaabayaa. diodka hubso anodka meesha madow inuu ku xirmaayo signalka, hubso. anodkii labaad, maadaama aan dhisayno full bridge, marka labadaasaan ku alxamayaa. waxaan ku dhejiyey fiilada cagaarneed oo aan u isticmaali doono ground oo ahayd center tabka. waxaan isticmaalay fiiladaas ayaan ku dhejiyey si meeshaas ay igu noqoto groundkayga oo aan u isticmaalo ground. marka taasaan ku kordhiyey. haddana waxaan rabaa inaan idin tuso diodka rectifierka signalka ka imaanaya. channelka koowaad waxaan ku xirayaa diodka koowaad. haddii aan fiirino diodka dhinaciisa anodka, haddaan fiirino waxaan arkaynaa sine wavekii in uu dhinacii positiveka ahaa oo keliya uu soo baxay. labada diod markaan fiirino, diodka koowaad iyo diodka labaad. sidaa ujeedaan diodka koowaad wuxuu tuuray halfkii kale oo minuska ahaa, because diodka wuxuu only conduct gareynayaa hal dhinac keliya sida diodka uu u shaqeeyo. marka markii sine waveka uu plus yahay, waxaa dhacayso diodka waa detect gareynaya. markuu sine waveka negativeka uu gaaro, sida hore idinku soo sheegay, diodka ma detect gareynayo negative, markaas diodka hal dhinac keliya ayuu u shaqeeyaa.
haddana waxaan ku alxami doonaa capacitorkii ahaa 470 microfarad dhinaca oo negativeka waxa uu ku xirmayaa groundka dhinaca positivekana wuxuu ku xirmayaa labada diode ayuu ku xirmayaa marka halkaa ayaan ku dhejinayaa dhinaca kalena waxa uu ku xirmayaa groundka marka waxaan laabayaa halkaas ayaan laabayaa kaasna wuxuu ku dhagayaa midkaas marka saas ayaan u alxamayaa haddana waa alxamayaa waxaan ka bilaabayaa groundkii taana waxaan ku rakibay capacitorkii labadii diode iyo capacitorkii waxaa marka noo haray inaan ku rakibno 0.1 microfaradka ayaa noo haray kana waxa uu ku xirmayaa capacitorka yar kuwan waxaa loo isticmaalaa filtering maadaama aan AC-ga u bedelayno DC waan sharxi doonaa capacitorka awooddiisu waxay tahay inuu filter gareeyo AC signalka capacitorkii 0.1 microfaradkii ayaan ku rakibayaa wuxuuna parallel la yahay capacitorka weyne 470ga marka isagana lugtiisa mid waxay ku xirmaysaa groundka tan kalena waxay ku xirmaysaa positive sideka oo capacitorka marka taana waan alxamayaa saas ayuu ugu xirmay capacitorkii kale haddana waxaan ku rakibi doonaa voltage regulatorski chipkan ama IC-gan waa 7805 marka waxa uu soo saarayaa 5 volt pinka ugu horeeya pin 1 waxa uu yahay inputkii pin 1 waa inputkii pin 2 waa ground pin 3na waa output waa meesha laga cod ka soo saaraya voltageka ka soo saaraya pin 1na waa meesha aan ka gelinaynay voltageka marka waxaan sameynaynaa halkaa ayaan ku xireynaa sidaasna ayaan u samayn doonaa sidaas ayaan u xiri doonaa maadaama pin 1 halka ay tahay waxaan u dhaweynaynaa capacitorka 0.1 microfarad ah haddana waxaan ku alxamaynaa chipkii ama voltage regulatorkii ayaan ku alxamaynaa saddexdiisa lugood pinta labaad waxaan ku xiray groundka ayaan ku xiray pinka koowaadna waxaan ku xirayaa capacitorka ayaan u dhaweynayaa sida ujeedaan lugtaas capacitorka ayaan u dhaweynayaa marka labadoodana waa isku alxamaya marka sidaa ayuu ugu dhigay kaas marka kaliya iisoo haray waxay tahay outputka ayay iisoo haray isagana waan ku dhejin doonaa connectorka iyo capacitorka 0.1 microfaradka ah waxa kaliya oo hadda noo haray waxay tahay capacitorka iyo connectorkii aan ka qaadan lahayn outputka marka kana waxaan ku xirayaa pinka saddexaad ayaan ku xirayaa iyo groundkii oo halkaas ah
marka sidaa ayuu u galayaa isagana. Kan wuxuu ku xirmayaa ground, kanna wuxuu ku xirmayaa pink 3. marka sidaa ayaan ugu alxamayaa. capacitorkii waa ku alxamay, marka lugaha inta soo harto dheeraan ka jaraya si uusan hadhow short iyo waxaas u keenin. kaasna waa ka jaray, lugtaasna waa ka jaray. marka sidaa ujeedaan, sidaas ayay circuitka u eg tahay. marka ka wuxuu noqonayaa complete, wuxuu noqonayaa 5 volt oo ka imaani doonto transformerka. waxa kaliya hadda aan u baahanahay waxay tahay connector inaan ku xiro sid meeshaan ka qaadan lahaa dabka. marka waxaan ku xiri doonaa midkaas ayaan ku xiri doonaa, saas ayuu u ekaan doonaa. marka asaga ayaan haddana alxamaya. waa inaan go-aan gaarnaa connectorka meesha aan rabno inaan ka dhigno ground iyo meeshaan rabno inaan ka dhigno 5 volts. marka waxaan sameynayaa sidaas ayuu u ekaanayaa insha allah. waxaan isticmaali doonaa midka, waxaan ka dhigi doonaa groundkii, kan u dambeeyana waxaan ka dhigi doonaa 5 volts, kan dhexda iyo kan labadanba waxaan u isticmaali doonaa 5 volts, kanna wuxuu ii noqonayaa groundkayga. marka sidaa ayaan u alxamayaa. meesha 5 voltska wuxuu ka imaanayaa regulatorska sida pictureka idinku tusay ayuu ku xirmayaa iyo capacitorka 0.1 microfaradka ah. marka sidaa ayaan u xiri doonaa, saas ayuuna u ekaan doonaa insha allah. lugtaas groundka ayaa ku xirmatay, labada lugoodna waan isku xirayaa oo waxaan ka dhigayaa hal lug. marka the only thing aan u baahnahay waxay tahay 5 voltska inaan ku xiro ayaan u baahnahay. 5 voltskana wuxuu ka imaanayaa regulatorka iyo capacitorka. fiiladaas yarta ah ayaan, si aan connection u sameeyo regulatorka iyo connectorka, ayaan halkaas ku dhijinayaa, waanu ku alxami doonaa. circuitkii waa complete way. halkaas waxaanu isticmaali doonaa 5 volts, halkaasna waxaan isticmaali doonaa ground. haddana si aan u cabiro waxaan isticmaalayaa labadaas fiilo. midda brownka waxaan u isticmaali doonaa ground, midda redka ana waxaan u isticmaali doonaa pluska. marka waxaan gelinayaa halkaas, marka meel laga dhuujiyo leeyahay, meeshaasaan ka dhuujinayaa masbaarkaas. kaas marka waa groundkaygii, pluskaygiina halkaas ayaan gelinayaa sida ujeedaan. marka waxaan haystaa plus iyo minus. haddaan soo qaato plus iyo minuska oo aan ku xiro scoopeka, groundkiisana aan ku xiro brownka, redkana aan ku xiro plus regulatorka outputkiisa, waxaan cabiri karnaa voltageka. marka waan daarayaa, sida ujeedaan waxa uuna tusayaa DC voltage ah oo clean ah, waa DC voltage. wuxuuna cabirayaa average, wuxuu cabirayaa 4.96. marka waa very close 5 volts u dhow yahay, waana ku fiican yahay. 5 volts wuu ku shaqeynayaa. waxaa kaloo male frequency male, maadaama ay tahay DC
DC frequency ma leh, waa AC ayaa frequencyga lagu cabiraa. Marka sidaa ayuu u egyahay power supply-gii 5 voltska aan dhisnay. Sheekada waxaan ka bilownay transformerkaas, waxaan dhisnay circuitkaas, aakhirkiina waxaa noo soo baxay 5 volts. Waxaan kaloo ku cabiri doonaa mitirka, sida wuxuu idin tusayaa meesha waxa ka soo bixi doono si aan u hubsano. Haddana waxaan cabiraynaa DC voltage ka soo baxayso power supply-geena annagoo isticmaalayna multimeter. Multimeterka labadiisa fiilo, midka groundka ama blackga ama minuska waxaan ku xiray negativeka groundka oo circuitka, pluskana waxaan ku xiray outputkii oo 5 volts meesha ka soo baxaysay. Markaan waxaan geynayaa DC ayaan geynayaa sida hore idinku sharxay. Fiirso casharkii ahaa sida loo isticmaalo multimeter oo kor aan ku dhejin doono. Hadda markii aan daaro power supply-ga wuxuu noo akhrin doonaa voltage-ka. Sida ujeedaan wuxuu akhriyay 4.93 ilaa 4.95 ayuu akhriyay. Marka taasna waxay noo sheegaysaa in power supply-geena aan u isticmaali karno DC 5 volts. Marka taasna waa xaqiijin oo noo xaqiijinayso oscilloscope-ku wuxuu noo soo saaray inuu sax ahaa. Marka sidaa ayaa loo cabiraa loona dhisaa circuitka. Si aan u dhammaystirno circuitka aan dhisnay ama power supply-ga aan dhisnay, waxaan soo qaatay PC board oo korkeeda u leeyahay aluminium oo loogu talagalay inuu noqdo grounding si maaragtay noise-kuna uga yaraado, tan kalena haddii shock iyo wax dhacaan uu isaga u qabto. Marka hadda waxaan sameynaynaa grounding ayaan sameynaynaa. Powerka saddexda lug uu leeyahay lug ka mid a sida hore usoo sheegay, lugtaas waxaa loogu talagalay grounding, waxaana la yidhahdaa earth ground. Waa ground ka yimid dhulka laga soo qaaday. Marka waxaan sameynaynaa fiilo ayaa halkaas ku xiraynaa, markaasa waxaan ku dhejinaynaa PC boardka. Taana marka waxay siinaysaa grounding ayay siinaysaa circuitka. Si aan meesha grounding fiican u sameyno, waxaan sameynaa wax yar ayaa xoqaynaa copperka little bit. Marka waxaan ku dhejinayaa alxan yaraan ku dhejinayaa si uu u shaqeeyo. Kana waxaan ku dhejinayaa alxan, isagana sidoo kale. Marka circuitkii waxay leedahay grounding, PC boardkii. Waxaan kaloo sameynayaa maadaama aan sameynay center tabka uu noo ahaa groundka center tabka ayaan waxaan ku dhejinaynaa isagana groundka ka imaanayo power supply-ga isagana si ay circuitku u noqoto circuit complete ah oo grounding fiican leh. Sidaas darteedna waxay keenaysaa inay meesha noise-ki uu ka yaraado. Waxaan ku dhejinayaa groundingkii uu circuitka lahaa. Ayaa waxaan ku dhejinayaa groundingka power supply-ga ka imaanayo si circuitkeena ay complete u noqoto. Power supply badan inta badan sidaas ayay sameeyaan. Taa waxay ka difaacaysaa inuu shock ku dhaco. Markuu lightning dhacana also wuxuu sameynayaa wuu ka ilaalinayaa circuitka. Marka waxyaalo faa'iido badan ayuu leeyahay groundingka oo loo isticmaalaa. Noise-ku yareeyaa. Marka insha Allah qayb dhan ayaan kaga hadli doonaa groundingka iyo sida loo isticmaalo.
marka circuitkii waa complete oo markaan rabo waa isticmaali karaa halkaas. kana waa power supply-gii oo complete ah meesha powerka uu ka qaadanayay switchkii transformerkii step downka ahaa regulatorkii iyo filterkii iyo outputkii meesha ka qaadanaya oo aan ku xiray meterkii aan geliyey. markaan meterka aan nalkiisa daaro aan fiirino aan markaa aan power supply-ga daarno waxaan arkaynaa inuu noo akhriyay 4.93 4.94 volts ayuu noo akhriyay, taasna aad ayay ugu dhowdahay 5 volts. marka aad baad u isticmaali kartaa any circuit ha noqoto ama analog ama digital ha noqoto, circuitkan way power garanaysaa. marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen.